Weli waxaa socda bannaanbax ay dhigayaan qaar ka mid ah bulshada ku nool Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyaga oo uga soo horjeeda maamulka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Bannaanbaxayaasha ayaa badankood waxay isugu soo baxeen xaafadda Xawatako ee magaalada Beledweyne, iyagoo qaarkood dhagaxaan iyo taayirro ay gubeen ku jaray wadada laamiga ah. Dadka bannaanbaxa dhigaya ayaa u badan haween iyo dhalinyaro, waxa ayna ku dhawaaqayaan ereyo ka soo horjeeda Hirshabelle. Sidoo kale, bannaanbaxayaasha ayaa waxa ay ka soo horjeedaan xukun la sheegay in la doonayo in lagu rido dad dhowaan booliska Hirshabelle ay xirxireen oo qaarkood taageero u ahaa Jenaraal Xuud, kuwaas oo horboodaya bannaanbaxa ka dhacaya magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha ayaa waxa ay ka dalbadeen dowlad goboleedka Hirshabelle inay si degdeg ah xorriyadooda u siiyaan dadka u xiran, waxaana dadkaasi ka mid ahaa wariyihii hore Cali Daahir Xiire iyo afhayeenka jamhadda Jenaraal Xuud. Xaaladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa hareeyay bannaanbax tan iyo markii magaalada Jowhar lagu doortay madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo doorashada bulshada Beledweyne ay ka soo horjeedeen. Maxamed Abuukar, Gobonimo TV.